ahay madaxa tababarada ee xarunta Nova oo ah xarun cilmi baaris iyo maaragtay baaritaano ah oo horeen waxaa rabaa kelmada ku saabsan maaragtay cunno caafimaad leh inaan laba qodob ka dhaho kadibna maaragtay xarunta iyo howlaheeda wax yar aan ka waxa waaye waxaan soo dhaweynayaa bandhigan barnaamijka maaragtay cunno caafimaad leh oo la dhawr u ah qofka iyo noloshiisa si uu kaga badbaado cudurro badan oo ay sabab u lahaayeen cunto maaragtay oo cunay oo aan saxnayn oo u badan tahay maaragtay Soomaalida aad u isticmaalaan cuntooyinka sokorta ku badan tahay cuntooyinka maaragtay gasacadaysan oo maaragtay dalka aan ahayn iyo cuntooyin habkarintooda ay soo wanaagsaneen intaba marka waxaan rabaa inaan jeediyo dad qofka wax ugu muhiimsan caafimaadkiisa qayb weyn ka ah waa waxa uu cunayo calooshiisa tagaayo maaragtay oo kaga fiirsado intooda badan cudurrada ku sababaya waxaa ka mid ah cuntada ka khaldanta cuntada mataqaana si khaldan u isticmaalaan hadda bulshadeena Soomaaliyeed waxaa ku soo batay cudurka baabasiirka ka arkay أنا أمسنا هاي إسبتال كسومالسين هوسبتال إنه يهاي إسبتال آد وتحلق قبر مشكاس وبكانة عذراس أنت بدن أي مادان وأركي ما هو بدن أو ترى بدن أو القلايو بدن أو ترى بدن أو الجداوين هايو حرون كاس أنت سبدنا وحاسوا ويا هاي النضا أو خلدنتا أنا كسومالي هان نسيب درنا استوحيت هاي داريه النضي وحكة سواها سنة لكن حوالي فرصمدي أنا خلدنا يقال استعمالكي magacaygu waa Amiira Weys Abuukar waxa ahay aasaasaha bandhiga cunnada caafimaadka leh bandhiga cunnada caafimaadka leh hadafka oo aasaasan waxay ahayd yani gaab jiro aan aragnay dadkeed maadaama wadanka yani dadka aysan si fiican u fahamsaneen cunnada caafimaadka leh faa'iido ay leeyihiin wadankan uu ku soo badanayo cudurrada chronic disease-ka iyo cudurrada kansarka oo intaba ay sababayso cunnadii oo aan saxnayn hadafkaas darteed barnaamijka yani gaabkaas dartiisa u qabanay bandhiga hadafkiisana wuxuu ahaa inaan bulshada gaarsiino waa maxay cunno caafimaad leh sida looga hortagi karo dhibaatooyinka ka imaan kara cunnooyinka hadduusan saxnayn waxaa qabanaynaa barnaamijka sanadkii labaad alxamdulilah sanadkan wuu ka qurux badan yahay sanadkii hore feedback aan la kulannana waxay tahay barnaamijka inay tahay barnaamij dadka aad u danaynayaan wax badanna ay ka faa'iideen aad waa mahadsantiin walahi feelingkayga iyo dareenkayga lama soo koobi karo because of waxaa u soo jeeda haweene badan dhowr bilna soo diyaarinaysay natiijada maanta inay aragtid bulshadii inay u rayaaqeen ay ka faa'iideysteen dadkii aafileynay ka badan aad ugu riyaaqan barnaamijka waana ku faraxsanahay qaabka uu dhacay